السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمضي أرضية ملك استوت جوكتانبا وحين كسي أن بقادي دونا هلكن 10 كيني عربي جاها جارها قيبت النحوها فصل كأفراد وحين نمرني مركي ودن بيسي وحين صوشنا الممنوع من الصرف لعلة واحدة كدي مركي إنه قرني إنه إصلاح قنصرني إنه ممنوع من الصرف بهاي وحكستون قادا تنوينته يهو صدوقه دبنا وحين نقول وحين ممنوع من الصرف جها سببتها وممنوع من الصرف ونقضي وحنا نسلسه قاضني إن ممنوع من الصرف إيمان كره لعلة واحدة مركا إنه مرينه أما السبب كلمة مركا إنه مرينه إنه يهي إنه اسمه كل ماضو ألف لو يقان ألف تأنيث الله وصيك اللي بحجري ألف التأنيث وأكل بحيي لبن نوع مذوها ألف تأنيث المقصورة ككلنا وها ألف تأنيث الممدودة وإنه هروسه قاضني وإنه كسو يرعلنا إنه سأصير أم بقاضنا وحين هيسن ألف تأنيث المقصورة أو المقصورة ومن تساليسها مثلا بشرى يحبلا مثلا كان وهو ألف تأنيث الممدودة وحوها مثلا حمراء صفراء وألف كستو كل ماضي اسم كستو كل ماضي همسو وكهر رأي ألف ما أنت وحين نقولنا إنه اسمك كوي ماتو صيغة الله يقان صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع وهي صيغة المنتهى الجموع محايتها مركا إنه أجنو صيغة المنتهى الجموع وحا أي كوسا بسنتها جمعية الله يقانو جمع تكسير صيغة منتهى الجموع مركا وصيغة جارة أو كمدة جمع الله يقان جمع تكسير واي waxaynu carabiga tahaysanaa saddex jamcu muannas salim jamcu mudhakkar salim iyo jamcu taksir labada hore salim baa leeyahay oo kuwaasi siiqadu dhismahoogii hore mufradka oo aan isbedelin ayaa waxa ku biiro wax laakiin jamcu taksirka siiqadiisii hore ayaa jajabta ama iska gadoonta oo isbedel ku dhaca sida daraadeed jamcu taksir baa leeyahay laakiin siiqadana iyada oo jamcu taksira ayay hadana shuruud gaar ah leedahay waayahay waxaynu doonaynaa haddaba bal inta aanaynu u gelin inuu mamnuuc min sarfiga ka mid yahay waxaynu ogaanaynaa inaynu barano siiqatu muntaha al-jumuuc waxa ay tahay siiqatu muntaha al-jumuuc hiya kullu jam'i taksiirin ba'da alifi taksiirihi حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ياء ساكنة وإنه يرقى حنا وحين نري هذا صيغة منتهى الجموع وحاي تهي وجمع كاستو جمع تكسيره وحكم يدي نوع الله يقان جمع تكسير وهي جمع تكسير كاسو بعد ألف تكسيره كلمة يدا أو مفردة أيا وحا أي نقو إسكو بدليسا جمع تكسير وحنا مركا بدلية أو قدون كار دالينتونا ألف لو يقان ألف تكسير كا وحا كتنبيا أما الله بحرف أما صدح حرفا كتنبيا صدح ده مركا صدح ده حرف تنبيان حرف كدحده كجيرانا حد يجر وإنه نقضو يا ريبان si aynu hadaba bal u fahanno waxaynu doonaynaa inaynu halkan tusaalayaal keeno oo aynu curino in tusaya qaacidadan waxay tahay mesela waxaynu haysanaa masjidun ayaynu haysanaa waxa kale aynu haysanaa qaaribun waxa kale aynu haysanaa marxalatun waaya waxa kale aynu haysanaa mesela risaalatun مثلا waxaynu haysanoo kale dirhamun kelimadaha markaynu eegno mid kasta waa mufradka markaynu eegno waxaynu u bedelinaa jamac markaynu jamac u bedelno waxaynu soo marinaynaa laba siiqo oo la yiraahdo siiqatu mafaa'il iyo siiqatu mafaa'il sin markaan arrinka u gaarno waa inaynu horta bal kuwani jamac ka dhigno si aynu u ogaano qaybta ay labada xaraf ka dambeynayaan masjid
waxaynu leenahay masaajid alif ayaa ku jira mid kasta alifkaasi waa maxay waa alifka gediyey ee mufradka muuqaalkiisii bedelay ee u bedelay jamc baa la dhahaa jamca marka waxaa la dhahaa dhismihii hore kelimadda ee mufradka ahaa ayuu alifkaasi bedelay masaajid bay noqotay alifkaa waxaa la eegayaa imise xaraf ayaa ka dambeeya halkaa waxaa ka dambeeya laba xaraf markaa qaybtaas waa qaybta labada xaraf ka dambeeyaan qaarib qawaarib qaarib baynu haysanay qawaarib alifku had jeer wuxuu dhacaa xarafka saddexaad alifka jamcigu waxaad ku garanaysaa had jeer inuu kii jamcaha yahay kaa halkaa ku yaala iyo kaa halkaa ku yaala maxaynu ku kala garanaynaa alifka jamca u bedelaya had iyo jeer waxa uu dhacaa xarafka saddexaad waayo waxa iyagu ku xidhan yihiin siiqada loo yaqaano mafaacil marxalatun maraaxil risaalatun rasaa'il mar kasta ood u fiirsato alifkaasi waxa uu dhacay xarafka saddexaad waxaana ka dambeeya laba xaraf daraahim maxaynu haysanaa qaybtaasi tusaalayaasha aynu halkaa taxnay waxa ay tusaale u yihiin qaybta uu alifka ka dambeeyaan laba xaraf oo waxaa la odhanaya markaasi kuwaas waxay ku yimaadeen calaa wasni mafaacil baa lagu soo ururin doonaa marka haddaba calaa wasni mafaacil lagu eegayo laba dhinac baa laga eegaa in ay tirada isleegyihiin haddaad isku eegto mafaacil iyo inta aan halkaa tahay oo dhan dhammaantood waa inay noqdaan shan xaraf 1 2 3 4 5 kuwana waa inay shan noqdaan waa shardiga ugu muhiimsan ee aad ku garanayso in uu yahay markaa waxaad soo qaadanaysaa miisaanka waa inay shanna noqdaan xarakadana isku ekaadaan waxaynu haysanaa mafaacil xarafka u dambeeya xarakadiisa iskuma hawlayno waayo waxaa la yidhaahdaa xarafka u dambeeya wuu isbedbedelaa waa icraabta oo xarakadeedu meel kuma sugnaato laakiin mar kasta oo jamcu tagsi ama siiqatu muntahal jumuuc aad doonaysa inaad miisaanto waa inaad kelimadan haysato oo miisaana markaad qaybta aad miisaamaysa waa qaybtee waa qaybta ay alifka ka dambeeyaan laba xaraf waxaad eegaysaa tiradii horta waynu isku wada eegnay 1 2 3 4 5 dhammaantood haddaad tirisaan waa wada 5 tanna maxay ka kooban tahay 5 xaraf 5taa xaraf xarakooyinku waa inay isku meel ay ku wada sugan yihiin masalan xarafka u horeeya waa kordhow ka labaad waa kordhow ka saddexaad waa sukuun ka afraadna waa hoos dhow waa in mid kasta oo ka mida jamcan laga helo shuruud halkaa ku jirta dhammaantood waxa ay ka midaysan yihiin tirada cadadu lxuruuf waxayna ka siman yihiin tartiibul xarakaat maxaan ujeedaa cadad lxuruuf waynu garanay dhammaantood waa shan xaraf dhammaantoodna alifka waxaa ka dambeeya laba xaraf dhammaantood haddaba xarakadu meel isku mid ah ayay dhacday xarafka koowaad fatxuu leeyahay xarafka labaadna fatxuu leeyahay xarafka saddexaad oo alifi had iyo jeer waa inuu reebnaado xarafka afraad oo alifka ku xiga had iyo jeer waa inuu hoos dhownaado waa qawaarib xarafka u dambeeya xarakadiisa iskuma hawlayno waayo way isbedbedeli kartaa masaajida bay noqon kartaa masaajidu saasay isku bedbedelaysaa laakiin markaa waxaynu ogaanay in ay ka midan yihiin kelimadahaas inkasta oo ay kala duwan yihiin muuqaal ahaan waxa ay ka siman yihiin laba nooc tirada xuruufta iyo xarakooyinku tartiibta waxaa loo jeedaa haddii uu kani kor dhaban yahay kani ma hoos dhownaan karo kana ma hoos dhownaan karo yacni waa inay maxay sidaa hadaan waxaynu gelaynaa haddaba in uu jamca ka daba yimaado alifka ka dambeeyaan 3 xaraf 3daa xaraf waxaa shardi ah inay u dhaxayso ya adaasoo reeban waxaynu haysanaa mafaatiix masaamiir masaakiin qawaariir halkan maxaynu haysanaa waxaynu haysanaa kelimado ay jamcugiisu noqday jamcu siiqatu muntaha jumcu ku yimid oo alifka
aynu u bixinay alifu taksiir aynu u bixinay maxaa ka dambeeya halkan waxaa ka dambeeya saddex kelimadood ama saddex xarafa ka dambeeya. saddexdaa xaraf ka dhexda ku jira had ya jeer waa inuu noqdo maxay ya reeban kani waxa uu ahaa 5 buu ka koobnaa, kanna waa inuu ka koobnaado siiqad kale oo loo yaqaan mafaaciil bal u fiirso kuwani waxay ahaayeen alifka labaa ka dambeeyey dhammaantood tiradooduna waxay isku haayeen 5 oo xuruuftana waxay tartiibtuna waxay ahayd meel kaliya wada dhacday. kuwani alifka waxaa ka dambeeya had jeer 3 xaraf, 3 xaraf ee ka dambeeya dhexda waa inay ugu jirto ya-daa soo reeban. mafaatiix, masaamiir, masaakiin, qawaariir. maxaynu haysanaa idan waxaynu haysanaa siiqatu muntaha aljumuuc oo laba qaab ku timid. kow waa jamcu taksiir bacda alifi taksiirihi, alifkaasina waa inuu had iyo jeer ka dhaco xarafka saddexaad uu dhaco. waa inaad u fiirsato mafaatiix, masaajid. alifkaasi aynu nidhi waa alifka loo yaqaan alifu taksiirku ka saddexaad buu dhacaya. halkan waxaa ka dambeeya 2 xaraf, halkanna waxaa ka dambeeya 3 xaraf. marka ay 3 xaraf dambeeyaan waxa uu dhexdooda waxaa ku jira ya-daas oo iyaduna reeban. labadan nooc ee aynu meesha ku haysano waxaa loo yaqaanaa marka la isku daro siiqatu muntaha aljumuuc. ismi kasta oo ku yimaada siiqatu muntaha aljumuucna wuxuu noqon doonaa mamnuuc min asarfi. waxaynu u baahannahay iminka inaynu isticmaalno kelimad aynu soo marino xeerkeennii aynu naqaanay ee 3 xaaladood la isticmaalayay, ee 3 xaaladood tanwiintana diidayay, hoos dhowgana diidayay. waxaynu masaxaynaa intan iminka waxaynu bedelayna kelimad ayaynu soo qaadanaynaa tusaale ah. fil qaryati masaajidu kathiiratun wal hadda u fiirso waxaynu haysanaa fil qaryati masaajidu. halkaa waxaynu haysanaa kelimadaasi inaanay tanwiintii qaadan oo ay xabad keliya qaadatay oo damo ah, halka ay kelimada ka dambaysaa ay u qaadatay tanwiin. waayo kelimadani waa masruufa, tanna waa mamnuuca min asarfi. markaa waxaynu isticmaalay marka ay marfuuca tahay oo waxay noqonaysaa fi lqaryati waa jaaru majruur khabar muqadam, masaajiduna markaa waa mubtada marfuuc calaamatu rafcihi damatun waaxida liannahu mamnuuc min asarfi liannahu jaa calaa siiqati muntaha aljumuuc. على صيغة منتهى صيغة منتهى الجموع. وعلة اللبات أما سببت اللبات اسمك ممنوع من الصرف لعلة واحدة ما كان جوجنا. أما وح كل ماني ألف وتأنيث أو كلا بحد ألف وتأنيث المقصورة أم يا ألف وتأنيث الممدودة. هكذا خلط بينه قال لي إن بدله الممدودة أو أي كلمة هاي حمراء. qaybta labaad waa inuu ku yimaado ismigu calaa siiqati muntaha aljumuuc. siiqatu muntaha aljumuuc 2 qaab ayay ahayd. waxay ahayd inaynu ku timid calaa wasni mafaacil iyo inay ku timaado calaa wasni mafaacil iyo calaa wasni mafaacil. kelimadani waa masaajid. marka aan idhaahdo ra'aytu ama sallayt ra'aytu masaajida kathiiratan bal u fiirsa kelimada waxaynu arkaynaa masaajida markaa iyadu waxay qaadatay fatxatan waaxidatan oo may qaadan fatxatayni. sababtuna waa maxay? waa mamnuuc min asarfi oo ku timid calaa siiqati muntaha aljumuuc. sidan ay ku timid ee ah siiqatu muntaha aljumuuca ayaa u diideysa inay masruuf noqoto. tani waxay noqotay iyada oo sifo ah ayna noqotay markaa masruufa, tanwiintiina way qaadatay. صليت في مساجد كثيرة waxaynu halkaan haysanaa masaajida baynu nidhi oo fatxa kisradii baynu u diidnay. waayo ismigan waa ismun majruur, waxaa ka horeeya xarfi fiya oo xarfu jariya. sidaa daraaddeed waxay noqon lahayd ismun majruur oo kisra halkan ku qaata, laakiin waxay noqotay waa ismun majruurun bifi
وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف وسببتنا ومحي والسبب أنه جاء على صيغة منتهى الجموع haddaynu dib usoo eegno waxa aynu maanta soo baranay marka uu yahay labada shay laba cilo oo marka cilo waaxida tahay waa laba nooc alif ta'niis oo kala baxda maqsuura iyo alif ta'niis al-mamduud aynu hore u soo qaadanay iyo maanta aynu soo qaadanay inuu ismigu ku yimaado siiqada loo yaqaan siiqatu muntaha al-jumuuc oo marka la qeexay iyaduna ah jamaca kasta oo taksiira oo alif taksiirkiisa kadib ay ka dambeeyaan laba xaraf koow ama ay ka dambeeyaan saddex xaraf marka ay saddexda xaraf yihiinna dhexda xarafka ku jira waa inuu had iyo jeer noqdo ya reeban saddexda marka labada qaab waxa lagu soo kala gaabsadaa kaana waxa lagu soo qaabsadaa mafaacil kaana waxa lagu soo gaabsanayaa mafaacil ka marka aynu joogno waxa laga doonayaa in ay shuruudu noqoto inay laba qaab isku waafaqaan in tiradu ay isleekaadaan oo shan noqdaan tartiibtuna xarakooyinkuna halka ay dhaceen inay mid walba dhacdo tan waa sidoo kale waxa la shardiyaa inay isleekaadaan imka hadii la tariyo kuwan inta ku soo aroortay iyo mafaacil way isleeyihiin marka aynu tirino kuwani waa 2 3 4 5 6 lix xaraf ay ka kooban yihiin kuwana waxay mafaacil lix xaraf ay ka kooban tahay mafaacil waxa xarakooyinkuna waa isku wada mid mafaatiix masamir masakin qawarir marka waxaynu halkaa maanta kusoo gabagabaynaynaa ismigii mamnuuc min asarfi licilatin waaxida ahaa oo aynu u kala qaadnay alifu ta'niis inuu ku dhamaado iyo inuu ku dhamaado siiqatu muntaha al-jumuuc waxaynu kasii anba qaadi doonaa ismiga mamnuuc min asarfiga ee laba ciladood halkaynu maanta cilad keliya ama sabab keliya aynu kaga hadlaynay waxaynu ka hadli doonaa al-ismu al-mamnuuc min asarfi licilatain wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh